koob iyo toban jir ayuu ahaa markii uu ogaaday xanuunka khatarta ah ee ku dhacay isla markaana ay khasab tahay in uu wadanka ka safro si loo daaweeyo waxa uu ku khasbanaaday in uu ka fogaado saaxiibtiisii uu dadka ugu jeclaa una ka citimo qaaradda Yurub waxay u malaysay inuu ilaaway muddo 7 sano ah oo uu ka sii maqan yahay kadib ayaa waxa iyadii ku dhacay musiibo naxdin leh oo ka yeeshay saaxiibtiis in aysan guriga ka soo bixin isla markaas ayaa shakhsi aan la garanayn guriga ku soo booqday markii ay la kulantayna kadis iyo filan waa iyo fajiciso ay ku noqotay maalin kamida maalmaha ayaa wiilkan la yiraahdo Lionel Messi waxa uu soo dhacay telefoon uga yimid dhanka qoyskiisa kaas oo sheegayay in saaxiibtiisii yaraanimada ee Antonella in maalmo badan aysan guriga ka soo bixin waxay diiday in ay iskool ka aado ama dadka ay la hadasho waxaana ku dhacay xanuun murugo ah oo daran sababtuna waxay ahayd in mid kamida saaxiibadeeda aadka ugu dhow uu galay shil gaari sidaasina ku geeriyooday warkaas dhilada leh markii uu maqlay kadib ayuu u walwalay saaxiibtiisii yaraanimada sidaas darteed ayuu go'aansaday inuu iyada darteed uga safro Spain una aado dhulkiisii hooyo ee Argentina si uu garabkeeda u istaago intii uu diyaaradda saarnaa oo uu safarka ahaa ayuu soo xasuustay markii ugu horeysay ay gabadhan isbartaan iyagoo oo ay isku bartay guri kamida guriyaha mid kamida saaxiibadiis asoo ku ciyaarayay game markaasna ay da'diisu ahayd 9 sanadood oo kaliya marka ayaa waxa uu soo gashay gabar uusan garanayn hase yeeshee uu aad u jeclaaday aragtidii koowaadba gabadha magaceeda waxa la oran jiray Antonella waxayna ilma adeer ahaayeen Lionel saaxiibkiisii uu gurigiisa joogay ee uu ku ciyaarayay waqtigaas Lionel gabadhaasi waxay la ahayd gabadha ugu quruxda badan ee uu waligiis la kulmo sidaas darteed mar walba oo uu fursad helo waxa uu aadi jiray guriga saaxiibkiis isagoo oo ka rajo qaba bal in uu la kulmo inanta waxa dhacday in xiriirkoodu kobco si tartiib ah ilaa uu markii dambe u bandhigtay jacaylkiisa iyo sida weyn ee uu la dhacay waxa uuna u ballan qaaday in uu waligiis garabkeeda joogi doono markii uu weynaadana uu guursan doono balse waxa uu waajib isaga dhigay in uu marka hore rumeeyo riyadiisa oo uu noqdo laacib caan ku ah kubadda cagta markii uu rumeeyo riyadaasna ay noqon doonto haweeneyda kaliya ee garabkiisa joogta sidaas ayay isku waafaqeen labadoodu nasiib darase alla ayaa isagu lahaa ra'yi kale waxa haleelay Lionel xanuun khatar ah oo u diiday jirkiisu in uu koro dhammaan dadkuna waxay diideen inay ka caawiyaan daaweyntiisa maadaama qoyskiisu faqiir ahaa oo aysan u awoodin in ay la tacaalaan markii qoyskiisu ka rajo dhigeen daaweynta wiilkooda ayaa waxa dhacday arrin lama filaan ah naadi ka socday kooxda kubadda cagta ee Spain ayaa ka faala qaaday caawintiisa iyo dhammaan kharashaadka ku baxaya daaweyntiisa waxayna shuruud uga dhigeen in uu ka soo safro Argentina una soo kaco xarunta kooxda oo ku taala Spain si uu kooxda uga mid noqdo markaas ayaa Lionel ku khasbanaaday in uu sagootiyo saaxiibtiisii cumriga ee Antonella waxa uuna u ballan qaaday in uu la soo xiriiri doono uusan ilaawi doonin xitaa haddii uu ka aado dawlad aad u fog balse nasiib darro waqtigaasi xiriirka wicitaanku waxa uu ahaa mid aad qaali u ah doonaysana kharash fara badan sidaas darteed Lionel waxa uu ku dhibaatoon jiray wicitaanada uu sameeyo marmarka dhifka ah ee uu saaxiibtiis la soo hadlo markii dambana ciyaarihii uu sameynayay ayaa inta ku farabatay ayuu joojiyay dhammaan wicitaanadii oo dhan markii ay weyday wicitaanadiisii oo dhan ayay u malaysay Antonella inuu ilaaway si kama dambays ahay waxay is oran jirtay ama halkaas iska barteen gabar cusub oo uu nolol isaga u gaar ah samaystay sidaas darteed ayay isku dayi jirtay inay isaga is ilowsiiso waxa socotay 7 sanadood Antonella waxay dhiganaysay dugsiga sare saaxiibadeed qofkii ugu dhawaa ayaa shil gaari galay waana uu geeriyooday musiibadaas haleeshay darteed ayaa waxa ku dhacay welwel geeysiiyay in stress ku dhaco waxayna guriga ku jirtay usbuuciyo oo aysan ka soo bixin qoyskii Lionel Messi ayaa arkay xaaladda gabadhan waxayna u sheegeen waxa ku dhacay saaxiibtiisii qadiimiga ahayd wuu awoodi waayay Lionel in uu sidaasi ku dhaafo saaxiibtiis waxa uuna ka codsaday naadigiisii fasax waxa uu ku soo laabtay Argentina oo uu ka maqnaa 7 sanadood markaas ayuu qaabilay jacaylkii cumrigiisa waxa Lionel lama filaan ku noqotay in saaxiibtiis noqotay mid ka qurux badan xitaa sidii uu sawiranayay waxa soo noqday xiriirkii ka dhaxeeyay labadooda waxa uuna ka cudur daartay muddadii uu ka maqnaa ee dheereyd wixii inta ka dambeeyayna xiriirkoodu waxa uu ahaa joogto waxa uuna ka yeelay markii ay dhamaysay dugsigii sare inuu u soo safriyo Spain si ay isaga ula noolaato 2 sano kadib safarkii uu ku keenay Spain
oo ku beegnayd 2009kii waxay jamaahiirta iyo saxaafadda ogeysiiyeen labadoodu xiriirkooda jacayl muddadaasna Lionel waxa uu galay ma bilaabay si uu noqon lahaa laacib caan ah oo safar dheer oo laacibtinimo uu ku gaaray heerka ugu sarreeya ayuu bilaabay balse intaas kaliya kuma ekaanay hadafkiisii ayuu ka sii saramaray oo waxa uu noqday laacibkii ugu weynaa ee taariikhda kubadda cagta isagoo sidaas oo dhan caan u noqday sidaas oo dhan guulo iyo sharafba uu xaqiijiyay waligiis intuu uu noolaa oo dhan ma baran haweenay aan ahayn Antonella 8 sano kadib ogeysiiskii ay dadka u sheegeen jacaylkooda kadib ayay isguursadeen waxaana soo xaadiray xafladii aqalgalkooda xidigaha ugu caansan kubadda cagta iyo caalamkaba waxayna dhaleen labadoodu 3 ilmo ah sida qoyskoodu yahay oo isugu xiran yahay dad badan ayaa ku kooniya kuna xasda farxadda ay haystaan sidaas ayuu kaga dhabeeyay Lionel ballantii qadiimiga ahayd ee uu u qaaday saaxiibtiis waxa uuna guursaday gabadhii uu kaligeed adduunka ka jeclaaday waxa uu yiri mar la wareysanayay waxaan ku jeclahay Antonella si kasta sida ay u wajahdo xaaladaha adag iyo mar walba sida ay sanooyinkii aan wada noolayn oo dhan ay garab joogtay waad ku mahadsan tahay daawashada ku xirnoo Cabdullaahi Case oo ka daawo muuqaalo ku xiiso geliya